join hands with the Somali community and say, thank you for inviting us to get to know each other better, to do a better job than we might otherwise have been able to do, to represent your interests. Because quite honestly, sir, our interests are the same. Thank you. xisbiga jamhuuriga ah ayaa xafiis cusub ka furtay gobolka Minnesota xafiiskaasi oo loogu talagalay in loogu adeego shacabka Soomaaliyeed lagana caawiyo ka hortagida amni darada ka jirta qaybo kamid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Minneapolis oo hoos tagta gobolka Minnesota iyo si guud dadka u baahan caawinta guud iyadoo sidoo kale ujeedku ugu weyn ay tahay in xisbiga jamhuuriga iyo bulshada Soomaaliyeed ay gaareen heshiis wada shaqeyn ah sidoo kale xafiiskaasi cusub loogu adeegi doono bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyadoo laga caawin doono baahiyaha dhan walba ay qabaan. waxaan la hadlayaa dhammaan community-ga Soomaalida runtii waxay farxad noo ah inaan partner wada noqono wada saxiixano heshiis aan ku wada heshiinayno saan wada shaqeyn lahayn value-ga aan wadaagno dhibaatooyinka jira community-ga haysta sida looga saari lahaa khaasatan Soomaalida wadooyinka lagu dilayo amni la'aanta security-ka iskuulska iyo family-ka dhibaatooyinka hayo dhan inaanu ka shaqeyno insha Allah taala waxa jira casho aynu qabanayno oo ka soo qayb galayaan soo bandhigi doono heshiiskana dhaxmaray Republican-ka iyo Soomaalida saynu wada shaqeyno xiriirkeenu uu wanaagsanaan lahaa meediyaha iyo dhammaan iyo community-ga dhan waan soo dhaweynaynaa inay ka qayb qaataan xafiiskan wuxuu ka caawinayaa community-ga dhan walba ka caawinaya qof dhibaato guud haysata si khaas wax u haysato arrimahaas oo dhan buu xafiiska ka shaqeynaya qof walbana uu iska diiwaan gelin karaa arrinkana waa muhiim bay noo tahay inaan value-geena Soomaalida ah ee Republican-ka ah inaan ku taageerno gacantana isqabsano codkeennana siino community-gana uu garab noqdo hal voice-na aynu wada noqono thank you so much. So waxyaabaha uu Republican-ku u taagan yahay ayaa waxa kamid ah qofka waalidka ah in xuquuqda la siiyo ilmihiisa qaabka wax loo barayo laakiin waxa jira jahawareerin badan oo lagu hayo ilmaha yaryar oo la rabo ayagoo 8 sano jira in la baro waxyaabo aan dhaqankeena ku haboonayn oo kamid ahayd waxyaabihii maanta laga hadlayay marka arrimahaas si aan ugu baraarugsanaano waxaan u baahannahay inaan ka hortagno waxa uga hortagi karnaa keliyana waa inaan xisbiga jamhuuriga u codeynaa waa maasanteen inta laga hadlay ee ugu muhiimsan as a father I don't want to know anyone to decide my children's future and what gender they're going to be. The reason they go to school is to get education. Yes. Number 2, minority communities there is a lot of things minority communities need like education, economic stability, home ownership and some other things. But we don't want to rally every day outside. We don't want to be against the police. Because you remember what happened in our city. ugu dambeyntii bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa ah bulshada jeer qayb weyn ka ah xisbiyada kala dhisan dalka Mareykanka iyadoo gobolkaasi ay leeyihiin madax Soomaaliyeed oo ku matasha qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay dawladda dalka Mareykanka. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.